سعيد علي جامع سعيد علي غوري oo ah hafayeenka xisbiga kulmiye dalka Australia oo shir jaraa'id ku qabtay dalkaasi ayaa waxa uu kaga hadlay shirkiisa jaraa'id saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ka samaysanaysa magaalada Berbera kuna hambaliyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo ku tilmaamay inuu dalka u soo kordhiyay horumaro wax ku ool iyo mashaariic ku cusub Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Sa'id Ali Jaamac سعيد علي غوري oo ah afayeenka xisbiga kulmiye dalka Australia waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo 4 qodob oo ka taagan wadciga maanta dalka ka jiro ugu horeyn waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin bariyahan dambe la isla dhexmarayay oo golayaasha sharci dejinta haday tahay guurtada iyo baarlamaanku ay baas gareeyeen oo ah saldhigga military ee dowladda Imaaraadka Carabta marka ugu horeysa waxaan halkan hambalyo uga soo jeedinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo tallaabada geesinimada leh ee uu qaaday ee uu ku horumarinayo keenay mashaariicda dhaxalgalka ah dalkan aad iyo aad baan madaxweyne kugu hambalyeynaa qof waliba intuu og yahay buu ka hadlay anagu dalkan Australia ku noolahay waxa dhammaan qurba joogta reer Somaliland ee ku nool dalweynaha Australia ay si kal iyo laab u soo dhaweeyeen arrinta bayska Berbera waa madaxweyne ay kugu bogaadinayaan intii waa mashruuc dhaxalgala arrimaha horumarinta ee dalka ee tallaabada hor loo qaaday maalinta ka dambaysa iyadoo ay jireen mashaariic badan oo inta ka badan laakiin maanta taagan waxaan kuu sheegayaa madaxweyne inay kugu garab taagan yihiin dhammaan qurba joogta Somaliland haday tahay Australia oo anagu aan joogno iyo haday tahay dunida inteeda kaleba hambalyo madaxweyne hambalyo wax kale oo hambalyo u diraya golaha baarlamaanka golaha guurtida waxa kale oo si gaar ah hambalyeenaya gudoomiyaha golaha guurtida oo arrinkaas si hufan oo geesinimo leh oo hal adayg leh u hogaamiyay golaha madaxweyne mashaariicda badan ee DP Wall iyo Berbera Base wadada Ceerigaabo dhammaan dalkan lama tirin karo horumarka iyo waxqabadka aad u soo kordhisay intaad xilkaysay qaranka ku ummadda reer Somaliland ee dhammaan qurbaha joogta waa ku ogtahay aqoonta leh waxaan ku leeyahay madaxweyne hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad geesta kale Siciid Cali Jaamac afayeenka dalka Australia xisbiga kulmiye waxa uu ka hadlay dhaliilo kululna u soo jeediyay xisbiga wadani oo uu ku eedeeyay inay ka hor yimaadaan horumarada laga hirgelinayo dalka anigoo hadalkayga sii wata inaan ka hadlo mas'uuliyad darrada ah sharaf darrada ah xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu uga hor yimi mashaariicda qaranka Somaliland mashaariicda horumarinta Biwol Berbera Base wadada Ceerigaabo warshada sibidhka dhammaan horumarka dalka ka soo runtii anigoo qodob u xusi doona xisbiga wadani waxa uu ku suntamay ama calaamad ku noqday inuu ka hor yimaado dhammaan wixii qarankan horumar u ah mashaariicda dawladdu ay soo hesho Somaliland hadaynu nahay caalamiye ma haysto laakiin dadaal iyo juhdi badan oo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay dadaal iyo juhdi u gashay inay mashaariic horumarineed keento dalkan waxa si gaar ah xusid u mudan in safiirka cusub kooban xilka hayay ka howlgala dalka Imaaraadka Carabta Mr Bashi si ku tallaabsaday tallaabo horumara oo dhaxalgala intii uu qaranka u adeegayayna inay mashaariic badan kamid tahay Fly Dubai iyo DP Wall iyo tan imka Basegaashi waxaasoo mashaariic horumarineed nasiib darra in xisbiga qaran ee jagada madaxweyne u tartamay ee gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro uu hogaamiyaha ka yahay oo baarlamaankeenu hogaamiyo inuu si cad oo bareera uga hor yimaado mashaariicda horumarineed dalka hore waxaynu ogeyn xisbiga wadani inuu si toos ah soo hortaagay bulshadii sibirka waa laga soo gudbay wuxuu mar labaad si cad oo qayaxan isu hortaagay dadii Ceerigaabo oo xildhibaano kamid ah golahiisa baarlamaanka oo xisbiga wadaniga oo macruuf oo la yaqaano duuban tahay si bareera iyo si dadbanba ay u yiraahdeen wadada Ceerigaabo wax suuragal maaha magaalada ku fureen hor yimaadeen diideen qaaraankii golaha baarlamaanku bixinayay contributionkii qaybtiga ka soo hagaagtay waa nasiib darro runtii waxaan maqli jiray in la yiraahdo ururada nabadiidka
qoladaasi waa nabadi. maanta waxaa runtii cad in xisbiga wadani uu noqday xisbi horumardiida, xisbi ku suntan inuu ka hor yimaado dhammaanba allaala wixii dalkan horumara doonayo inuu ku tallaabsado. waxaa iyana xusid mudan halkan inaan ka xuso in xisbiga wadani xildhibaano ka mid ay isku dayaan markay arkeen in qaranka baarlamaanka hadday xukuumadba tahay mashaariicdaasi la baaskareeyo oo qaranka loogu isku dayeen shakhsiyaad tiro kooban oo xisbiga wadani inay fooday. runtii tusaalaan bixinayaa golaha qaska waday ee doonaya ka dhex dagaalamaan fadeexada waday waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Saciid Cilmi Rooble. waxaan leeyahay haddii dagaal qaylo wax lagu helayo kuwii ka horreeyay wax ku qaado Cilmi Rooble buubaa iyo xildhibaan ayaa qas wareer waxba ku waayay, kuwaas wax ku heli lahaa. xildhibaankuna hadduu sharciga jabiyo runtii xasaanadii uu ka tuug marka la leeyahay qof suuq marayo, laakiin markuu waxado baa la yidhaha waa tuugoo la xidhaa. daamin sharcigu xildhibaanku xasaanadiisa wuu waayay marka uu sharciga jabiyo, sida tuugaasaa la xidhaya. xildhibaan baana xasaanad baan leeyahay qaylo cid alla cid sharciga ka sarreysa ma jirto, cid kaa yeelaysaa ma jirto. dalkan sharcigaa sarreeya, sharcigaana wax lagu cid kasta oo sharciga ka hor timaadana gacan biraa baa lagu qabanaya. Somaliland waxaan u sheegayaa inaan lagu marmarsano xasaanad baan leeyahay kanaan leeyahay, ama suxufi ha ahaado, suldaan ha ahaado, ama xildhibaan ha ahaado. qofku marka uu sharcigan qaranka iyo xasaanadii banaanku waa tuugaa la qabtay oo kale, sharcigaana la marinayaa. hadalkiisa isagoo sii wata afhayeenku waxa uu si adag uga hadlay suxufiyiin ku xidhxidhan magaalada Hargeysa. waxaa jiray dhawaan in la xiray niman wariyayaal sheeganaya nin la yidhaha Cabdimaalik Muuse Aldoon oo ah samafale iyo Maxamed Baashi. runtii waxaan qabaa reer Soomaaliya inaynu horta fahanno oo aynu garanno hebel baa la xiray maqashe aragte, laakiin shacbiga reer Soomaaliya waxaan u sheegayaa bal horta inay isweydiisaan maxaa lagu xiray qofkan, ma sharci baa lagu xiray mise sharci darro. waxa weeyaan wariyayaasha xidhan laba qaybood weeyaan. ninka Cabdimaalik Muuse Aldoon la yidhaahdo samafal waha dad badan buu wanaag u geystay, credit-ka waa leeyahay, dadka qaadaysan ma. laakiin muhiimadu ma aha qofku hadduu wanaag galo oo qalad sameeyo la isu miisaamo oo hala kala guro. runtii aakhiro ayaa la isu miisaamaa qofka sharki iyo khayrkiisa, kii xasanaadkiisu batay ama xumaantiisu badato markaa lagu xisaabaa. dalkan Somaliland iyo dunida ku noolahay caalamka qofku hadduu sharci jabiyo sharciga qabta. Somaliland qarannimadeeda ayuu Cabdimaalik Muuse Aldoon ka hor yimi, qarannimadeena ayuu ka hor yimi, midnimadeenu ka hor yimi, sharafteenu ka hor yimi. marka waa isku la oranayo waxaan horuus sharciga qabtay sharciga xidhay. dhalinyaro badan baan arkayay oo gobolka Togdheer ka soo jeeda oo runtii u campaign gareynaysa la sii daayeen. dhalinyarta waxaan u sheegayaa reer Somaliland asxaafaduna horta marka hore sharciga bar weeyaan. dalaan sharci lahayn kuma noolaan. nabadgelyadiina iyo dadnimadiina iyo aqoontiina iyo maalkiina iyo sumcadiina waxa ilaaliyaa waa shar kala dambeynta. taa la waayo waxa weeyaan qofna siduu yahay ma ahaanay. qofkii sharciga jabiya sharciga qabay, ninkani sharcigu jabiya hala soo daayo maaha af, laakiin talaan siinaya dhalinyaro waa saxsantiin, waa support garay u kaalay ninkan maalinta maxkamadda la marinayo la xukumayo dacwadiisu dhamaato. xaakinka xukumaya ee abaal marinaya ee dambigiisa ku qaadaya hor fadhiisto waxaad tiraahdaa anagoo saxaafadiya waxaanu codsanaynaa xaakin inaad dembigan ninkani waliile ka khafiif maadaama wanaaga nooca iyo noocaas. taasaa sharciga taasaa dadnimada waafaqsan. laakiin qof dembi galay iska soo daaya si loo soo daynaya waaba dembi. Saciid Cali Jaamac afhayeenka xisbiga kulmiye ee dalka Australia ayaa isagu waxa uu mar waliba ka qayb qaataa horumarinta bulshada Somaliland iyo dardargelinta hawlaha xisbiga kulmiye ee dalka Australia.